ها سلطان بسم الله الرحمن الرحيم. halka waxa yaala waa budayaal iyo shaakeeyo ay uriyeen dad isla qaaday oo ganacsatada reer qadka yaay khayr meesha ka saaray ardayda ilaahay waxay ugu talagaleen dadka abaaraysan ee bariga inuu baadaaba eereen ee qabowda ay bustaasha siiyaan maadaama ay qowl ka dhacayo wixii caraf loo heli karo ay siiyaan wixii biyo loo heli karo la siiyo marka runtii maanta aniga farxad bay tahay anu ma abaabulin cid kaloo aabushin ma jirto iyagaa is abaabulin sharaf bay ku mudan yihiin ilaahay jisaay wadaha khayr ha ugu bedelo waxaan leeyahay dadka kale Soomaaliyeed waxa ku dayreen dadkeena abaaraysan ee bari iyo galbeed meel walba jooga ee ka imanaya wixii loo tiri karo loo tiro أنا اللي سكت أقول ذكر بينها يرين قطيرات وحبا ينعرف في يدين الحسية والله بشتغل غير وإد ما ستي السلام عليكم. طيب سلطانك أبو دريا الله معك إلا صدق بقول أكون إن شاء الله تعالى وأنا أمري ومتى أنا وأنا أقول بالله بي أو شهد له وسيس وضع مصر أشوا أقوى إن شاء الله تعالى ديان كان واحد باقي نساء سلطانك هو شيء يقول الله كيله نجي عاوز كتير كريم نجي عليه كتير كريم كتير deegaanka inaan laga kaalmeeyo hawsha insha Allah maadaama lagu soo burqado saldhigna inaan laga kaalmeeyo insha Allah ta'ala bismillah alhamdulillah rabbil alamin waa sida ay suldaanku sheegay way mahadsan yihiin dad muxsiniin oo fara badan ayaa waxoodii la baxay jimcadii kolkii la yawahay dad badan baa qayroodo xitaa go'yaashii ay qabeen iyo iska saareen dad waxa jira guriyii inta ku noqdeen wixii yaalo dhanba soo xaabiyo yiri diyaalka ana u iibsaniyo balkan maaratay cilmada fajaqro soo galay diyaalkiisa ka gasho alxamdulillah waxa weeyaan moogtahay waxaan eega meeshan maray waa 130 qoys baan maray intaan soo bilownay mid walba waxaan siinay xabad bustaa iyo xabad baakeeda iyo ciyaalka uu wato intii bi macnaa uu maaratay uu gashi u noqon lahayd iyo qofkii la arkaba qoyskii la arkaba 3,000 oo bil baan siinay alxamdulillah waxaan doonaynaa wixii kalena inaan intaan kari karno sii taban taabino muuminiintu waxa weeyaan meelay joogaanba waa walaalo weeyaan maalinka noocan oo kale haddaan la isu damqanina iimaanka daciifa oo ay ku tusaysaa weeyaan dabadii bilaa meel kastoo joogno waxaan ku boorinaynaa qof kasta oo wax haysta inuu walaalkiisa baahan inuu dareemo oo uu wax siiyo qofka muuminka wuxuu weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka yaa ugu amaarta ugu khayr badan buu yidhi anfacuhum buu yidhi kan kolba dadka maarta ugu khayr maarta anfac badan ee dadka maarta anfaca kaasa ugu wanaagsan buu dadka bimacnaa sadaqa la wax la bixiyana maxaa u wanaagsan bay yiraahdeen qofka walaalka muuminkood qalbigiisa farax geliso oo ama wax siiso ama bimacnaa maarta xaaje u qabato aduu qofka oo qalbigiisa suruur geliso amalka la qabto waa kaasa u fadli badan buu wax kale oo bimacnaa ka fadli badan ma jiro kolka walaalaheena intaan kari kara tabaalada waa inaan sii wadno aynaan ku daynin intane aynu isku dayno meel kastay marayaanba aad waa inay u farxaan barkood kolkaan siinayna xamaarta xalifiidkii kolkii la siinayay qayb baa wuxuu yidhi walaal intuu soo dhacay buu bustii buu dhunkaday qabowgii hayay wuxuu yidhi alxamdulillah warbal waan idin ducayna gacmaha kor u qaaday buu axantii haysa kolkuu soo jeday walaalayaal dadka noocaas ay noo socda aynu ku dadaalo إحسان سي ودنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aynu ku dadaalo bas ugaaska iyo culimadu Suudaanka iyo culimadu way dhameeyeen anagu ugaasadina waxaan ku baaqaynaa taageerada noocaas oo kala hadda korno la taagnay intaan ku diray wax way maanta wadada dhanka bari waxa loo soo joogsaday in xagga bari maadaama ka imanayaan oo dhaxantiisa soo galaanba markaaba laga huuyo diyaar baan loo leeyahay shacabka masaakiinta ee walaalahayna waa la garab taaganahay abaalna ka barna xagga Allah ajri laga rabaa saasoo soo dhawina Suudaanka la baaqan ruu bixiyay aad buu ugu mahadsanyahay ducada ilaahay martay abaarta Allah inaga soo jeediyo abaarta Allah inaga soo jeediyo ilaahay baa umada wax gaarsiin kara ilaahay noo soo naxariisto inaguna inaan baaqa qaadana nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama dhulka isaga naxariista ilaahay baa samada idinka naxariisan marka ilaahay khayr ina ku jazeeyo suldaanka iyo ugaaska iyo odayaasha iyo culimada hadashada ilaahay khayr ina siiyo inaga waxayna faran inaan umada wixii aan ku tari kareen ku tabaalna ilaahay abaarta inaga soo jebiyo abaarta ilaahay inaga soo jebiyo qadar khayr qaba degdeg Allah ina siiyo sallallahu alayhi wasallam saynaga taageerona tada jifina وانتو
لا